cuntadii isbaysiga ahayd ee carabta kullay yaban baa inaga inoo dhowwe taasaan rajaynaynaa in laga cuno meeshii lagu nastay ilaahu ka dhig ilaahu naga aqbal ilaahu noo ajiib balaayoy baydh balada hore rooran dadamba reeban tasare raaran toose rabeeban tabayadu riixan hoteelka Al-Yaman Al-Saciid restaurant oo si casri ah loo qalabeeyay ayna kuugu diyaar yihiin shaqaale xirfad sare leh oo aad ka helayso dhammaan noocyada kala duwan ee cuntooyinka Yamaniyiinta iyo cuntooyin kale oo tayo leh sidoo kale hoolka ay dib u habeyn casri ah ku sameeyeen waxaana saaka laga daafray magaalada Boorama gaar ahaan goobtii uu ahaan jiray Hotel Oslo waxaana si wada jira xadhiga uga jaray barasaabka gobolka Awdal maayir ku-xigeenka degmada Boorama wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha Somaliland waxgarada aqoonyahan salaadiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan markii ay soo dhameeyeen kormeerkooda waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay mulkiilaha Yaman Al-Saciid Xaaji Cali Saqiir Xasan iyo sidoo kale injineer Axmed Xuseen Yaafici. كما نرحب بالوزراء والمدراء والعقال والسلاطين والنواب نرحب كلا أحدا بصفته كلهم نرحب بهم حياهم الله وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله في اليمن السعيد أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا فيكم وأشكركم شخصا فردا فردا ونشكر الحكومة صوماليلاند على ترحابها في اليمن السعيد وفي اليمنيين نشكر الحكومة شكرا من كل أعماقنا رحبت بنا ورحبت باليمنيين بالذات يعني اليمنيين لهم حفاوة وكرامة من إخواننا الصوماليون أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليمن السعيد وقيبتي بورما وحي قيبة كل هاي الصوماليلاند وقيبتي أفراد وحوين هرقيسة ودار قيبوضة بربرة يوتشالي بورما ومانتا قيبتي مقالة أفراد الصوماليلاند إلا كل كشناد وجيجانا وحي كل هاي قيبة marka waxaan aad iyo aad idinku soo dhaweynaynaa idin wargelinaynaa inaad aad iyo aad ugu soo dhawaataan mulkiilaha Xaaji Cali waa mulkiilaha Yaman Al-Saciid marka aad iyo aad baad mahadsantihiin inta kadibna mas'uuliyiintii kala duwanaa ee kala soo qayb galay xadhiga jarka hoteelka ayaa halkaasi ka bogaadiyay isla markaana soo dhaweeyay ilaahu bilaaya adduunyada aakhirba naga nabadgeli ilaahayow xaruntana meel barwaaqo ka dhig bash ilaahu ka dhig balaayada ilaahu ka nabadgeli meeshii lagu dhigay ilaahu ka dhig meeshii lagu nastay ilaahu ka dhig ilaahu naga aqbal ilaahu noo ajiib balaayoy baydh balada hore rooran dadamba reeban tasare raaran toose rabeeban tafayadu riixan allahumma salli ala muhammad subhana rabbika رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا كريم. waxaan joognaa furitaanka hoteelka Yaman Al-Saciid Oslo hore Oslo waxa Cali mulkiilaha waanu barakeynaynaa insha Allah magaca Ilaahay baan ku furaynaa Ilaahay waxaan uga ducaynaynaayo nabiguna عليه الصلاة والسلام ganacsiga waa u duceeyay barakallahu fi tijara الله يبارك إن شاء الله ويجعله خيرا لهذه المدينة إن شاء الله وندعو لكم بالتوفيق في هذا الاستثمار في مدينة بورما وأنا نائب في المدينة فخور بكم إن شاء الله ونرحب بكم إن شاء الله كل مجال ده أدي دوقوا بحنا يتوانو مالنا ياهو إن لسوق جارسيو بورما أديجي مركب وحن لنا هاي welcome إلى هذه بركايو وأنا كنت عايزنا ألف مبروك والله hoteelkan Yaman Al-Saciid aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Ilaahay u barakeeyo waxaan rajaynayaa in cuntadii isbaysiga ahayd ee carabta kullay yaban baa inaga inoo dhowwe taasaan rajaynaynaa in laga cuno ha badato dadku ha ku bataan Allah barakeeyo Ilaahay ha barakeeyo warbaahinta Cishqi TV Boorama.